runtii waa inaad ogaataa waxyaalaha mar walba hoos ku dhigaya waxaan isku tirinaa dowladaha hoose kuwa ugu horeeya waan isku tirinaa laakiin wanigii sheelta talada siinayo waxyaalihii number 3 geeyay waxa kamid ah in board la dhajiyo boardkaasoo lagu muujinayo maxaan ku raacdaa ama mashaariicdii ama ahaato miisaaniyadii sidoo kale in marka shirarka la galo minutiska la qoro oo minutiska ay systemka kamid ahaadaan xisaabaadka kamid ahaadaan markii wadada laga watashanayay community-gu markay soo yimaadeen sawirreyn laga hayo in hadaladoodii la hayo in waxaas ahaadaan si wax u guuleystaan marka marka hore tiri baan xariijeen insha Allah inaan wankayagi aan noqon doono insha Allah mashaariic waaweyn baa berbera ka socda gudoomiye mashaariicda imka socda maxaad 2 iyo 3 iyo 4 idin ugu koobi kartaa waxaan aad ugu faraxsanahay in horta marka hore dawladda hoose waxay leedahay miisaaniyad habraac miisaaniyad bay leedahay oo sanad walba raacdo waxaan dadka u sheegnaa mar walba anigu qorshaan leenahay qorshahaas waa hage isaa ku hagaya marka kuma riyoona marba dadka baahida waxay noo sheegaan ma qabanee wax laga sii shaqeeyay oo golo deegaan diyaariyay ayaanu fulnaa anagu aan fulintii baan nahay marka mashaariicdii 2021 January bilaabmay ilaa imika December laba ka saddex wali noo taagan oo aan rajaynayo inaan bishan gudaheeda haddana aan dhagax dhigno dhamaystirno dhagax dhiga waan ku bilownay January waana ku khatimi doonaa mashaariicduna siday u bilaabantay ugu dhamaatay Ilaahay baa mahadle subhanahu wa ta'ala loo suurtageliyay waxa barbar socda markaad wanaaga samayso cid ku caawiso waa imis waxaan garab socda mashaariicda ama miisaaniyada dheeraadka ka dibadaha naga soo gala ama miisaaniyada lafteeda ka soo baxay dusaarka ku ah marka mashaariicaha guuleystay ee imika noo dhamaaday waxa kamid ah in 12 kilomitir iyo badh wadooyin asfal ah inay sanadkan noo qabsoomeen maxaan ku raahdaa iskuulo cusub aan dhisnay xanaanooyin cusub aan dhisnay maxaan ku raahdaa wax badan oo miisaaniyada ku jiray oo noocyo badan inaanu qabanay waxa sidaas oo kale loo barbar socod salaamka garoonkana ka shaqeynaa kale wani showdan sharxay kuma jirin miisaaniyadeeda laakiin wax weyn baan ka qabanay bulshadana wax weyn bay ka qabatay isku tashi bulsho iyo maamulkii ayaa dhacay terminal bus shiki waad ogeyd sanadkan noo dhamaaday madaxweynaha xariga ka jaray waa functional oo shaqeynaya oo ummaddu taasoo waa noqday system nidaam inoo shaqeynaya marka mashaariic aad fara badan baa sanadkan noo qabsatay waxa laakiin ka sii adag oo ka sii nagaga sii cunsaan doona sanadka soo socda 2022 4 mashruuc fulin doona Abdullaahi ka dhigo oo malcamadu ugu yar tahay halka qole malcamadu ugu yar tahay gudoomiye muddo imika 9 sano ayaad hogaaminaysa degmadii berbera wax badan oo lagu xusuustaa way jiraan taariikhda oo kamid noqon doona waxyaabaha asadka ee berbera waxaa doona ma ku socotaa gudoomiye meel sare ama mihigsanaysa inaad maanta aad noqoto meelaha ugu sareeya aad gaadhay wadanka laga maamulo taniyo badan baan ku helceliyaa anu siyaasi meehe xisbi aan taageero cidna aan xusho laakiin anu siyaasi meehe waxaan jecelahay magaaladan iyadoo laga hayaamayo baan dareenkaygu galay inaan magaaladan aan soo sharxo ummadda mid wax u qaban karaan noqdo ilaahay qalbiga wax ku jiray buu ka rumeeyay dhexdhexaadna waan hawli dadka waaweyn meehe dadka yarna meehe waxaan si aad ugu faraxsanahay inaan ku noolaado magaaladeedii shalay sidii ahayd iyo maanta sidii tahay iyadoo qurux badan inaan ku noolaado oo wanaagsan anaa noo fiican qurux badan aan ku noolaado intaa way qorshaygu aniga ma qaban lahayd xilli waaweyn haddii maanta lagu magacaabo gudoomiye ismalihi kulliba qalbigayga kuma jirto waayo xilka mas'uuliyadda nafteeda saaran iyo danahayga aad iga badan waayo waxaad in badan aragtaa qofka mas'uulka waa la dhaliilaa anu waxaan ahay nin ganacsado shaqaysta xoogsada anu xoogsanayo hanti lama meesha imi igama leeyahay masixin in aan noqdo in shaqaysan waayo wali waan shaqaystaa ganacsiguna uu socdaa shaqadeeduna waa socotaa marka waxaan jecelahay inta ka taa wixii ka dambeeyay inaan nolosheeda saxda ah inaan ku noolaado danahayga gaarka ah inaan maamusho mardan waayo jiilal badan oo dhalinyaro ah oo maanta aqoonyahana ayaa u baahan in waqtigooda la siiyo loo baneeyo booska loo baneeyo lana tuso inaan guuleysan karno waxna qabsan karno marka waxaan ku faraxsanahay inay maanta isu diyaarinayaan dhalinyar fara badan oo ka guuleystay intaan xilka hayay dowladda hoose ka guuleystay iyo kuwa imika jooga oo jecel inay wax badan bedelaan oo ay halkan qalbigan wadaniyadu iyo damiirku u shaqeeyo
ayaan rajaynayaa inay xilka intaan ka badan ay qaban doonaan iyo meel ka badan ay tegi doonaan. Batalaale wadadeedii baa socoto oo qurux badan oo dheereen ay ku sameyseen isaga ka waran qorshihii beachka gudoomiye. Beachku waa bilow, hadda waa bilow. Mukhtarow wax badan baad soo joogtay iyadoo dirriye baad soo joogtay oo aan waddo baan lahayn, laakiin waxaan rajaynayaa sanadka soo socda 2022 inaad kala garan weydo ma waxa joogtaa dal kale mise waxa joogtaa magaalada aad ku dhalatay joogtay. waxaan rajaynaynaa wadadan waxa weeyaan security leed baan ku xidhaynaa 6 kilomitir dadku ay lugeeyaan oo marka beachka yimaadaan waan sameynaynaa security leedkii leh oo dhirtii leh oo baarkinadii leh oo meelihii lagu nasanayay leh oo qaybtii badbaadada leh oo wax walba waa qorshaysantahay insha Allah inaan qabanno. marka view aad u qurux badan ba shayga guriga ma kala dhisayo la yagleelayo ma muuqdo, laakiin marka dusha la saaro ee structure-kiisu dhamaystirmo ayuu qurxiisa soo baxdaa. marka Berbera qurux badan ma insha Allah rajaynayna dhawaan. Soo jeedintaada ugu dambeysay ee bulshada Berbera gudoomiye maxay tahay? waxaan bulshada soo jeedinayaa ii dhagaha nugul ee maqasha aan aad ugu mahad celinayo. marba heer baynu ka soo dhaqaaqinay, waxa jiray heer ay bulshadani bacolaha isbedelka, waxa jirtay mar xashiishka aan guri kari weyn xashiishka inaan ka qaadnaa dhibaato ahayd iyadoo adeeg bilaash ku helay xashiishka bilaash laga guro. marka waxaan bulshada leeyahay wax kasta oo ay dawladdu qabato ama dawladda haato ama dawladda hoose haato waa hanti adigu aad leedahay muwaadin, hantida adigu aad leedahay ilaasho. waxaan rajaynayaa haddii shalay bir ku aamin weynayna taagna boodha oo maanta birtii noo soo tagashayna boodhkii noo taagayna hagayo in leenayno in iyadoo quraarada inoo ooli doonto. waayo maanta waxaynu gaarnay in geedka bannaan ka beerno, bannaanka oo qofku ka beero isagu iska ilaaliyo ka jiirana dee tallaabo laga qaado. marka isaga imika muwaadinku isaga tallaabo iska qaada, muwaadiniintu iyagaa ilaashada, iyagaa wixii u soo kordhay ummadda ilaaliya, geedka iyagaa xanaaneeya, xashiishka iyagaas ka soo sheega haddii loo shaqayn waayo, haddii doono iyagaas ka basriya. waxaan doonaynaa inaynu noqono dadkan horemaray